محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id kulan ay iskugu yimaadeen kutlada badbaado qaran ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugana arrinsanayeen xaaladaha ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay isbedelayay iyo sidoo kale marxaladan kala guurka runtii aad iyo aad dhibka badan dalkeena iyo dadkeena maanta ay ku sugan yihiin. waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa qodobo ka soo baxay shirkan kutlada badbaado qaran ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta ku yeelatay magaalada Muqdisho. marka koobaad waxaan soo dhaweynaynaa golaha badbaado qaran oo ah madal u taagan badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qabashada doorasho xor iyo xalaal sidii dalka ay uga dhici lahayd. sidoo kale waxaa maantay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee kutlada badbaado qaran halkan ku saxiixeen petition lagu cadeynayo mowqifka kutlada badbaado qaran iyo sida dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin karo qatarta ku soo fool kale. petitionkan waxaa kaloo ku jira baaqaan u dirayna dadka Soomaaliyeed dowladaha iyo hay'adaha dawliga ee daneeya arrimaha Soomaaliya si aan ugu cadeyno qatarta farmaajo ku yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qoriga dab kale ee uu la meehanaabayo sidii dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa. fidnada hormuudka uu ka yahay ee la doonayo dalka in dib loogu celiyana la iskaga kaashan lahaa sidii looga hor istaagi lahaa. sidoo kale waxaan baaqanagan ku cadeynay ama ku cadeynaynaa ugana digaynaa saraakiisha farmaajo uu adeegsanayo burburinta dalka iyo adeegsiga awoodda ciidan ee baalmarsan shuruucda dalka iyo hay'adaha dimuqraadiga ah curdunka ee dalka Soomaaliya ka qaaday muddooyinkii la soo dhaafay. waxaan leenahay nimaan idin furi doonin iyo idin rarin dambiga aad ka gashiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed berita adinka ayaa la idin kula xisaabtami doonaa ee farmaajo idin kama difaaci doon. waxaan sidoo kale halkan ka cadeynaynaa oo kutladu ka cadeynaysa inaanan aqbalaynin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda ee farmaajo gadaal ka riixay doorashadana uu ku diidan yahay. waxaanan uga digaynaa guddoonka baarlamaanka federaalka inaan dalkan lagu dumin gacmahooda mana shaqayn doonteen. waxaan idin leenahay ceeb iyo foolxumo ummadda Soomaaliyeed idinkuna u soo jeedinina dalka iyo dadkana ceeb aysan ka soo waaqsi karin gorodda u gelinina ayaan idin leenahay ee walaalayaalow dalka u tura dastuurka u hoggaansama haddii aad ka shaqaynaysiin sidii loo tabantaabi lahaa ama dadka la isku keeni lahaa